dadka degan deegaanka Daarusalaam oo ah deegaamadii dhawaan laga hirgeliyay gobolka Buuhoodle waxaa ka jira xaalad adag. Daarusalaam ayaa waxaa ku nool dad gaaraya 400 oo qoys oo barakacyaal ah, waxayna barakacyaashan haysan wax hooya waxbarasho la'aan, waliba goobihii caafimaadka gabi ahaanba. Deegaanka Daarusalaam dadka ku nool ayay waxay baaq dheer u direen hay'adaha samafalka. Waa kuwan iyagoo la hadlay telefishinka caalamiga ee Royal TV. degma 400 oo qoys ay degan yihiin magaalo ay degan yihiin magaaladaas caafimaad ma leh MTS ma leh iskuulka waxaanu ku dhignaa dad muracaada dhiga wax yani ma leh wax agabkii iskuulka ma leh agabkii iskuulka ma leh waxa weeye macallimiintu mushaar ma qaataan biyo iyo male riig male ceelal male waxa weeye horta dadweynaha waxaanu codsanaynaa dadka abaaroobay ee meesha degan ee tiradoodu inta la eg tahay in loo gurmado waanu codsanaynaa khaladka inta la eg in laga galay oo iyagii dadkii hay'adaasna la xumeeyay annaga Daarusalaam ahaana la xumeeyay baanu ka cabanaynaa markaanu su'aalayna waxa la yiri waxba idin ma hayno waxaanu ogaanay in la soo qoray 6 magaalo hareeraha naga xigay annagana baas mid walba nalagu dhaafiyay wadooyinka ay marayaan waa kuwan annagu bixinay ee xooggayaga aanu ku bixinay iyo xoolaha iyagaba waxaanu haysanay baanu ku bixinay nafta aanu u xornay ee NRC in ama godobta waxaanu ku galay la soo cadeeyo midabta koorkaana lagu sameeyay in la cadeeyo godobta waxaanu ku galay soo jireen ah oo nalaga galay oo kii hore iyo kan maanta oo bali aan maaragtay halkaas wali nahayo baan sheeganaynaa deegaanadii lagu hareereysnaay oo dhan oo dhowr toban waa la qoray NRC bisha casba qortay annagana waa nala dhaafay marka waxaan ku mutaysanaa markaan su'aalayna waxa la yaal waxaan ku mutaysanaa ilaa iyo hadda ma hayno marka hay'adaha caalamiga waxaan u sheegaynaa kulmiga soo jireenka in lagu hayo oo maalinka maanta dadkaas oo dadka ugu sabalsan in aan maalinka maanta laga booday oo Daarusalaam dadkii ku noolaa oo dadkii oo dhaqatada ahaaya oo dad fara badan oo ilaa 400 iyo wax dheer bale dadkaasi horta sanadka Ilaahay baa bixiyay uu sigtay wuxuu la sigtay koob biyo la'aan baraaga la'aan hooy la'aan waa dad barakacyaal oo dadku xoolo dhaqatada ah weeye magaalo gal ma aha waa reer miyiga xoolo ka dhamaadeen waxaanu ku codsanaynaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah waxaanu ku codsanaynaa in gurmad degdeg ah oo waxbarasho leh oo caafimaad leh oo ma hayno malihin amjees malihin haddii hooyooyinka imika hooyooyinku ay umusho inaanu gaari ku qaadno meel kale u carar mooyaane malihin tii imika dhiiga goosata malihin waxaanu ka codsanaynaa in lala soo gaadho caafimaadkii guryihii dadkii reer miyiga xoolaha mooyaane aan dhar kale iyo arag kale tahay xoolaha ku badbay xoolahana wayna dhaafeen markana dhaafeen waxaan isla dhulka u loo yaacay halka ka soo irkan hay'adaha caalamiga islaamiga oo dhan halka faleeyo siiyo dad wata dirdirna lagu dhaafay fursada loo saaray iyaba garan weyn anaga hay'adan si dhaaftay soo dhaaftay hortayaday martay markii dambana wayna soo martay dhulkii oo dhan way qortay Daarusalaam waxa la xilliga qortay ma jirto Daarusalaam intaas tuula run marka la disho waa ta ugu jilicsan maanta ugu jilicsan aqoonta ku nuxnuurinta hay'ad tahay indhoolayaasha hay'ad yihiin maxaan ku ilaahay jilicsanteeda nooc walba isugu jiro Najma Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Buuhoodle.